Abshire aadan waa hooyada dhashay Cabdiraxmaan Salaad oo 15 jir ahaa laguna dilay magaalada Columbus bilowgii sanadkan 2020. Sida la sheegay Cabdiraxmaan waxaa toogtay laba askari oo ka tirsan booliska Columbus xilli uu ku sugnaa gudaha farmashi ku yaala wadada Broadway isla magaalada tan. Hooyo Abshire waxay muujinaysaa in aysan wax cadaalad u helin wiilkeeda tan iyo markii la dilay iyadoo oo waqti badan gelisay inay hesho sababta loo dilay. Sida ay sheegtay waxay codsatay in la tuso muuqaalka kaamirooyinka farmashiga iyo waliba kuwa ku xiran askarta si ay u xaqiijiso eedeymaha loo soo jeediyay wiilkeeda oo ay ka biyo diiday. Cabdiraxmaan wuxuu jiray 15 sano hadda ayuu 15kii galay. Waxaa lagu dilay magaalada Columbus Ohio qaasatan farmashi CVS la dhaho oo East Broad ku yaala East Side. Wiilkeyga wuxuu dhintay January sanadkan hadda aan ku jirno bishii koowaad 30keeda ilaa hadda wax Cabdiraxmaan xataa kaamirada CVST dhibaatadii ka dhacday itusa mise igu garab istaago ay dhaha falkaano askartii cunugaaga taa u geysteen askar ha naqata xaq dawlad ha naqata dadkii Columbus jaaliyadan ku nool ha ahaato wax aan helay oo Cabdiraxmaan ka hadlay misaan ka arkay wax yar xataa cadeyn oo sawirkii xataa markuu CVS dhex taagna xataa ilaa hadda ma hay inuu dhintay oo la aasay baani ogaa wax ka dambe wali waxaan haay malaha. Geerida Cabdiraxmaan oo ah curudka qoyskan oo leh 11 caruur goorma ayay ka war heshay hooyadiis Abshiro. Cabdiraxmaan guriga wuxuu joogay 5 wuxuu joogay 11 saac iyo bar galabti guriga ayuu la joogay gabar la dhalataan shaqo u waday markaan soo noqdayna ma joogin guriga. Cabdiraxmaan horta askar ayaa igu dhahday waan dilnay askartii waxaan ku dhahay wiilkeyga ma dhintay haa ma soo tusi kartaan habeenkii waxay ugu dhaheen meelaha meydka markuu dhinto la geeyay bari uun raadsan kartaa marka wax hadda aan leeyahay Cabdiraxmaan waxaas loo qabtay oo i garab istaagay Cabdiraxmaan maalintuu dhintay ilaa hadda ma jirto. Dilka wiilkooda waxaa uga xanuun badnaa in loo diiday inay arkaan muddo 2 cisho taas oo boog ku noqotay hooyo Abshiro iyo qoyskeeda. Markii wiilkooda ay arkeen murugo kale ayaa u korortay waxayna la kulmeen in qalliino kala gedisan wiilkooda lagu sameeyay muddadii uu isbitaalka ku sugnaa. Wiilkeyga maalintuu dhintay maalin Khamiis ahayd oo askarta habeen Jimco soo galaysa guriga nooga yimaadeen waa ku raacayaan ku dhaw way diideen habeenkii waan baxay ani habaryarteedii dad kale ay raacay isbitaalkii aan tagnay ilaa habeenkii 4 PM meeshan joognay waana la diiday in wiilkeyga la tuso kaliya waxaan ku dhahay xataa ay tuso wajigiis inuu asaga yahay xataa aan ogaada kii dhintay because Cabdiraxmaan Salaad dhintay kaliya ay ugu dhahdeen laakiin maan arkin inuu wiilkeyga xataa way diideen dadkii isbitaalka askartii way diiday Khamiis ayuu dhintay Sabtigi ayaa la tusay meydkiis ugu horeeyay aan arkay 3 maalin meydkiis xataa leeyma tusin markaan arkay Sabtigiina waxaa lagu sameeyay jirkiis xataa tabsiyay dhaayeen zaid ayay u qalqaleen xabadii ayaa ku yaal murugo badan ayaan ka qaaday markaan xataa arkay korkiisa asagoo xabad lagu dilay hadana jirkiisna la qale marka dhibaato fara badan ayaa wiilkeyga ku dhacday soo gaarto. Cabdiraxmaan in loo helo cadaalad iyo in la isgarab taago qoyskiisa waa ay ka niyad xun tahay Abshiro mar kale. Waxaan rabay in lawyer iyo waxyaalaha aan u qabto u doodo lawyerkina waxaan ogahay markuu inuu wax ku qabto uu rabo lacag ay u baahan yahay ana qarash maan haynin wax i garab istaago qarash igu garab istaago lawyer u qabtan ilaa hadda maan helin marka lawyer cunugeyga xaqiisa waxaan u baahanahay soo saara say wixii u dhaceen i tuso oo i garab istaaga dadweynihii Columbus ku nool iyo adduunka meel walba ay joogan si aan u arko xaqiiqdii dhacday wiilkeyga soo dhintay ilaa hadda ma hay xataa sawirkiis ma hay maalintii meeshaas lagu dilay ilaa hadda wax garab aan ka helana male. Qoyskan waxay ilmahooda kala soo carareen dhibaatadii xanuunka badneyd ee dalka Soomaaliya waxay marqaati ka noqdeen mar kale ilmahoodii oo lagu dilayo wadan nabad iyo kala dambeyn ay ka jirto tii oo aan cadaalad wali loo helin. Waxaan u baahanahay cadaalad meel walba adduunka qofkii maanta ay maqlay codkeyga oo jooga cunugaas yar oo saqiirka oo 15 hadda u gooday xaq daradii lagu dilay in la garab istaago oo xaqiisa la soo saaro wixii loo dilay cadeyntii la tuso maalintuu dhintay ilaa hadda hurdo ma hay habeen walba say hortaagan dhibaatadii uu ku dhintay ay hortaagan marka waxaan u baahanahay in codkeyga la maqla adduunka meel walba la joogo dhibaatadan maanta igu dhacday
qof walba beri way ku dhici kartaa. Marka waxaan u baahanahay jaaliyadda Soomaali meeshan Columbus aan ku noolahay almost 60,000 odada ku noolaa maqle maanta dees gacan qabsadaan in cunugayga cadeyntiisa la soo saaray dhibaatadiisa u dhaxday askarti laga soo saaray xaqiisa la soo saaray ayaan ahaan aaminsanahay because dhibaatadan maanta ugu dhacday beri walaalkaaga ku dhici kartaa. Marka in laga hortago intay ku soo gaareen dhibkan ayaan u baahanahay in la garab istaaga cadaalad ayaan u baahanahay. Waxaan u baahanahay waa cadaalad iyo xaqiiqdii meesha say wax u dhaceen inaan arko. Cabdiraxmaan waxa uu ku jiray dugsiga sare waxa uuna u weynaa 11 caruura aabahood waa indhoole qofka ay sida dhabta ugu tiirsanaayeen waa hooyadood Abshiro ilaa iminkana la daaladhacaysa raadinta cadaalad loo helo Cabdiraxmaan goorma ayaa hooyo Abshiro wiilkeeda ugu dambeysay ka hor inta aan la toogan 10 PM markay habeenimo laba nin oo askar ay imaaday waxay ugu dhaaday wiilkaaga uu dhintay. Cabdiraxmaan markaan maqla geeridiis labadaas askar ay imaaday ugu dhaaday wiilkaaga uu dhintay yaa dilaan ku dhahay waxay ugu dheen askar dishay wuxuu ku dhintay CVS. waxaan dareemay markiiba shock iyo naxdin badan anoo dareemay jirkeyga dhanbo in qayb kamid ay ka baxday ayaan dareemay zaid ayaan u naxay waa shoog gareeyay muddo ilaa isbuuc hataa hadalka si fiican dadka xitaa waa ula hadli waay. Maxamed Faarax iyo Maahir Cabdi waxay ka mid yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee Columbus ku nool waxay wadaan isku day ku aadan in cadaalad loo helo qoyska Cabdiraxmaan iyagoo ugu baaqay jaaliyadda Columbus iyo culimada in fiirigooniyo loo lahaado arrimaha noocaana iyo waliba in la isgarab taago hooyo Abshiro iyagoo u sameeyay page dhaqaale loogu aruurinayo qoyskan si loo helo qareen u taagan arinta Cabdiraxmaan. waxyar inaan baaqyar u jeediyaan rabaa culimadeena iyo jaaliyadaha Columbus oo haayo ku nool dad marka waxaan rabaa inaan xasuusiyo horta culimada arrimahan oo kale markay dhacaan intii aan comment ka soo bin lahayn waxa adiga ogeen waxba ka ogeen ma condemn garan karno ma cambaareen karno ilaa aan dhabta ka gaarno waayo hadda toole kiisaskan marka anaga sidii booliiska aan weydiino kale waxay dhahaan ongoing investigation waayo comment ma ka bixin karno marka annaga isdulleynin ilaa aan waxa dhabta aan ka gaareyno waa waajibni saaran community ahaan haddaad tihiin organization kasta oo ku register garaysan in ay Soomaali wax u qabtaan fariinta u diraa waxay tahay waxaad u shaqaysiin ummadda ayaad u shaqaysiin ummadda markaad dhibaato soo gaarto booskii buuxin lahaa adinka ayaa marka fadlan adinkoo waxba kiiska ka ogeen midda koowaad waajibkan ay saaran waxay tahay garabseenta kali ayaa qofku ku bogsoonaya ilaa xaq laga ogaana. Assalaamu calaykum magacayga waa Maahir Cabdi Cali dhalinyarada Columbus deganaan kamid ahay maxaan maanta video u soo suubinaynaa inta aniga shakhsi ahaan maamada cunugan laga dilay inta garab istaago ilaa xaqeeda ka helayso xuquuqdeeda ka helayso cadaaladeeda ka helayso ilaa video camerayaasha meesha ku wareegsan dhan la soo wada saaro macala body camerayaasha oo booliiska ku xiran la soo wada saaro aragto proofka oo cunugu soo waxa u dhaceen because anaga ma joogin dad jooga meesha male askarta iyo cunugaas bas joogay marka maxaa rabnaa inta aragno video camerayaasha bas anaga aan u soo baxeynaa ama downtown u tageynaa protest u suubinaynaa ilaa cunugan xaqiisa helno ii sheeg maxaan kaloo ku dari lahay jaaliyadda Columbus maanta hooyadan ay ku dhacday dhibaatadan bari ana igu dhici kartaa adeeg ugu dhici kartaa kulligeena meeshan America waqti dheer aan joognaa ciyaalan ku wada dhalanay cunugan hadda u jeedin waa his 15 only years old meeqa qof aad 15 years old qabtiin ciyaalkiina marka anaga hadda maxaan rabnaa inta helno video camerayaasha say wax u dhaceen ilaa aan waxaas aan ka heli waano waa protestant suubinaynaa ilaa oo xaqa maamada ay ku hesho. Cabdiraxmaan maaha wiilkii ugu horeeyay ee boolisku ku dilo Columbus waxaa jirta tiro kale oo dhalinyaro Soomaali ah oo boolisku dilay iyo kuwa iyagu istoogtay dhammaan waa ay yar tahay wax cadaalad loo helay ama si dhib abaaritaan loogu sameeyay mana cadda sababta marka laga reebo kala daadsanaanta jaaliyadda oo noqotay fursad laga faa'iideystay. Deeqasona warbaahinta qaranka Columbus Ohio.